ahna odayaasha Subeer Awal magaalada Sheffield waa Maxamed Yuusuf Hersi ku soo dhow waxa weeyaan boqolaal ceel baa la qoday dhulka beeshan degtay ceel laga qoday anu waan tagay gaari baan ka haystay goon baan u dhaadhacay tuulayaashaasaan wada tagay ceel sheekh baan tagay dadka waxaan weydiiyay meesha caafimaad ugu dhow caafimaad waxa ugu dhow Berbera Boorame iyo Hargeysa dadka halka jooga lagama codeeyo booliis ma laha iskuul ma laha caafimaad ma laha idinba oga Soomaaliland kama tirsana waxa weeyaan doorashad ka hadlaysaan xukuumadda doorasho inay qabato kuma talagelin anu waxa leeyahay doorasho iska dayo Soomaaliland sanadka inta ka hadlay xukuumadda haysta kuma hoos noolaan karto way baabaaysa ma gaadayso idinku 7 bilood iyo inta waxa dhiba ka hadlaysaan waxa weeyaan Soomaaliland maqaamka taagantay waxa weeyaan waa maamul goboleed Soomaaliya kamida oo Puntland ka hooseeya waliba madaxweyne Siraayo kulku Chatham House yimi 2012 ayuu Soomaaliland ka noqday waxaan dadka u sheegay waxba kama jiraan waxa ku cadaynaysa nimankii xildhibaanada waddanka Ingiriiska Soomaaliland u doodayay oo wada amsay iyagu ku dhow inay mooshin geeyaan baarlamaanka ayuu ninkaas yimi waa la bedelay waxaan laga sheegnay kolkay Turkiga Istanbul tagaanay soo noqdaan kuwa muqdisho ay dhahaan waxaan ku heshinay kuwa Soomaaliland ay dhahaan ma waa beentood labada kuwa Soomaaliland baa been sheegaya waxa muqdisho sheegaysa lagu soo heshiiyay waa ma waxba kama jiraan waxa kuwana beenaalayaal kuwaas runta sheegaya metel kolku xasan sheekh leeyahay caadifada madaxweyne Siraayo ku yiri halkan dadku inta caadifadu ka jabaysan ma welinaya afka abgaalkaba kuma jirto caadifadu asagaalaysan waxa weeyaan waxaad ka hadlaysaan jiidali anagu odayaashii haddaanu nahay dhalinyarta jiidali waxaan leeyahay oday ha sugina oday dhaqameedkiini wuxuu u batay oday dhooni hadda dhalin dhooni baa soo baxday xaga kale ka soo baxday waxa weeyaan maalqabeennadiinu مع حوله ولا لليه ده كلام قبيلين كلام مع القبيلين كودو دت كودو عاوية كوينا يجي حوله ده ولا لليه هادو سيران مليون كان هذا ويكين يعني لكن هذا هادو هذا $1 كان ضوء عد هلقو قبته وكاسي جيسني وكا وحنون عينو قبنا ويانا ده كلامه قبين كاسي xisbiga kulmiye laantiisa magaalada Sheffield shir markaasi ay isugu yimaadeen ayaa waxa ay ku sii sagootinayeen sidoo kale gudoomiyahooda gudiga Nustambeedka oo u kicitimaya dalkii hooyo halkan waxa naga dhoofaya gudoomiyihii Nustambeedka Master Maxamed Yuusuf baa naga dhoofaya Hersi waxaan leenahay safar salaama insha Allah hawlo shaqo ayuu soo baxaya maalinta salaasadu naga soo baxaya waxaanu leenahay xagga looga diyaar garoobo ninka odayga waa nin culus weeye waa odaygii Nustambeedka iyaga waa markay noogu daran tahay xagga ma garanaysaa maaliyadda ragga noo kaca ee hawlaha nala qabta halkan waxaan naga imanaya nin odayo oo culus oo magaalada Sheffield ka imanayo laf dhabarta xisbiga kulmiye ah oo la yiraahdo Maxamed Yuusuf Hersi dhammaan gudida iyo madaxda xisbiga kulmiye iyo taageerayaasha iyo dhammaan Soomaaliland dalka magaalada Sheffield waad ku mahadsantiin xafladan ay qabateen iyo sida adiisi sawatina waad ku mahadsantiin waxaan halkan ka salaamayaa ummadda Soomaaliland oo dhan madax iyo mijaba gaar ahaan xisbiga kulmiye kuwa talada hay iyo kuwa ku soo socdaba munaasabadan oo ay soo qaban qaabiyeen ururka Damal waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan xisbiga talada haya ee kulmiye waxaana halkaasi hadal ka jeediyay Maxamed Yuusuf Hersi oo isagoo ah gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee magaalada Sheffield ee wadankaasi UK waxa hadda baan ka hadlayaa anigu maadaama xafladda magaca la igu soo dhaweeyo yahay inaan ahay gudoomiyaha Nustambeedka ee xisbiga kulmiye magaalada Sheffield waxa weeyaan magaalada Sheffield waa magaalada xididka ugu weyn ee kulmiye uu ku nool yahay uu ku taagan yahay weeyaan haddaan ilaahno nacam kulmiye waa geed xididka ugu weyn oo nafaqada ka qaata ilaa kolkuu kulmiye bilaabmay waa magaalada Sheffield weeyaan waa xisbiga kaliya ee hoggaankiisa iyo taageerayaashiisuba ay waddanka aaminsan yihiin weeyaan